hindisahan wasaaraddu waxay soo gudbisay bartamihii May 2019. hawsha laga qabtayna waxay isugu jirtay wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay sharciga xisbiyada siyaasadda ee lambar 19 soona baxay 27 Juun 2016. sharciga magaciisa kooban waa sharciga xisbiyada siyaasadda dalka, wuxuuna ka kooban yahay 21 qodob. maadaama nuqulka sharcigan la qaybiyey, waxaan rajaynayaa in laga maarmi karo inaan qodob qodob u wada marno. taa beddelkeeda waxaan faallo guud oo kooban ka bixinayaa hawsha laga qabtay dib u eegista sharcigan. sida ku cad qodobka 2 ee dib u eegistan sharciga waxaa lagu dhaqayaa xisbiyada siyaasadda dalka, wuxuuna qeexayaa arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelintooda, maamulkooda iyo maalgelintooda. wuxuu tilmaamayaa shuruudaha axsaabta, dhismahooda, habdhaqanka iyo waxyaabaha ka reeban. waxaa dib u eegis lagu sameeyey hannaanka diiwaangelinta rasmiga ah ee xisbiyada hore isu diiwaangeliyey si ku meel gaar ah, taas oo habraaceeda oo tifaftiran lagu qaabeeyey qodobka 7. sidoo kale qodobka 8 waxaa lagu nidaamiyey habraaca la isaga casili karo xubinnimada xisbi siyaasadeed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dib u eegistan qodobkeeda 10 wuxuu ka dalbayaa xisbiga siyaasadeed in marka la guddoonsiiyo shahaadada rasmiga ah ee diiwaangelinta uu 30 maalmood gudahood ugu soo gudbiyo xafiiska diiwaangeliyaha qoraal rasmi ah oo caddaynaya hantida xisbiga ee sanadkaas koowaad oo ay bixiyeen asaasayaasha ama ku soo gashay qaab kale oo sharciga waafaqsan. hawsha laga qabtay dib u eegistan badankeedu waxay ahayd toosin tixraacyo qaldamay oo ka dhashay wax ka beddelid uu baarlamaankii 9aad oo sharcigan ansixiyey ku sameeyey nuqulkii loo soo gudbiyey si ay u diyaariyaan nuqulka la ansixiyey 2016. waxaa kale oo jiray qodobo kooban oo qalad bixin lagu sameeyey, toosin, fasiraad ama eray bixin iyo faqrado lagu kordhiyo. gunaanadkii waxaan golahan sharafta leh ka codsanayaa ama aan weydiisanayaa in iyadoo la tixgelinayo muhiimadda sharciga xisbiyadu uu u leeyahay qabashada doorashada qaran ee waqtigeedu nagu dhow yahay, in la dedejiyo ansixinta dib u eegistan. dedejinta sharcigani waxay fududaynaysaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka loo dhammaystiro shuruucdii ay ku howlgeli lahaayeen.